Real Madrid vs Manchester City kulanka ugu xiisaha badan Champions League toddobaadkan ayaa kulanka Real Madrid martigeli doonta kooxda Manchester City kulan ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu ee dhaca magaalada Madrid ee dalka Isbaanishka kana tirsan lugta koowaad ee wareegga 16 tartanka Champions League. ciyaartan ayaa mid aad u xiiso badan maadaama Real Madrid ay doonayso in sanadkan ay ku guuleysato tartanka xiisaha badan ee Champions League halka xirtu uu hogaaminayo Pep Guardiola ee Manchester City ay ku soo guuldareysteen Premier League waxayna awoodooda saari doonaan inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee Champions League. 5 saac caawa ayana ciyaartan soo gali doonta Santiago Bernabeu ayana ka dhici doonta kooxda Manchester City ayana weligeeda ka badan Real Madrid iyadoo ay Champions League ku kulmeen 4 jeer. City ayaa guuldaro la kulantay 2 kulan sidoo kalena labada kalena barbadhac ay ku kala bixeen labada dhinac. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaana ka aragti dhiibtay ciyaarta weyn ee caawa dhexmari doonta kooxaha Manchester City iyo Real Madrid kulan ciyaareed qayb ka tartanka Champions League waa kuwan iyagoo aragtidooda ka dhiibanaya kulankan weyn. بسم الله أنا مجيء محمد آدم حسن أهلا تاجر مانشستر سيتي labadan sano waxa ku jirnaa xaalad xun iskaga jirnaa anoo taageero Manchester City laakiin caawa waxa rajaynaynaa in horta mudooyinka soo noqono inkastoo Premier League laba sano ku soo hogaamineen waayo fiican ku soo hogaamineenay tartan iyo loolan badan soo galnay macnaha ku dhameeysan kaalinta labaad inkastoo aan la kulan laba sano soo socoto ganaax Champions League أنا معناه قلوبتنا أنا معناه إيش فعلًا أو حنرجينا إن شاء الله إن ريال مدريد أكبر ليس دونه جامبيونز ليج أنا ميل في عن معناه كجاري دونه سيد هذا كور باير وقعد جلسية كوبكا أيضا معناه وايحهم كجرته. أنا أقول بالله مجا عبد الله فرح محمود نرنتي جيم كذا كدع دون برنابيو نرنتي وجيم مركي جوريس سيد عن صادالنا يكون بدأ عكت جامبيونز ليج وليبا مركي جوريس كل مايان هركان يوليبا ماركتي مقالهان maaragtay koobka Champions League koobka ugu xiisaha badan dunida runtii marka laga bixiyo World Cup-ka runtii kulmitaanka ay kulmayaan City iyo maaragtay Real Madrid oo caawa ka dhici doona Bernabeu waxaan qabaa runtii gamekaas inay ku kala duwan yihiin labada tiim hadba sidii u matalaan koobka Champions League waxaan ognahay inuu yahay maaragtay koob ay ku wanaagsan tahay sidii Real oo kala ee u qaado kooxda Real Madrid marka aad fiiriso Man City waa koob khibrad ahaan experience aan aysan ku fiicneen marka aad fiirisid maaragtay saxad ahaan inay ka soo muuqato sanadadii ugu dambeeyay waliba inkasta ay tahay team dhaqaale fara badan oo aad u xoog badan la galiyay haddana waxaad u malaysaa xagga khibrad ahaanta iyo inay ka sii mid ahaato tiimamka maaragtay heerka fiican ka gaaro aad ugu adag tahay inkastoo heerka hadda ay ku jirto Real Madrid oo san aad u qurux badneen kadib markuu ka tagay tiimka Zinedine Zidane ku soo laabashadiisa hadda performance aad u fiican ee tiimka sameynaysa laakiin waxaad u malaysaa dhaawacyada faraha badan ee kooxda Real Madrid hayo in caqabado ugu waaweyn ay yihiin oo kulamadii ugu dambeeyay oo Zidane oo ka baxay ciyaaryahan Eden Hazard waxaan qabaa City oo performance aad u fiican sanadkan aan lahayn xaalad ahaanna aan ognahay guud ahaan qaabka ay maaragtay u matasho koobka Champions League waxaan qabaa kulankaas caawa ka dhacay Bernabeu in ugu yaraan inkastoo aan dhigi karin si xoog badan ay u badin doonto kooxda Real laakiin waxaan qabaa si daciif ah oo aan adkeen in looga badin doono kooxda Man City ciyaartaasna ku dhamaato taaliyeeba ila magaciigu waa Kuncil ciyaarta Man City Real Madrid waxa ku saadaalinaa in Man City 3-1 ku badin doonto sababtoo ah Man City waxay ku jirtaa form fiican Real Madridna ciyaarta ugu dambeysay waa ognahay hal iyo ever loogu soo badiyay marka aan waxaan leeyahay Man City 3-1 camal ku hadlay كوبادينا مركا ساسوك سادالنا. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عثمان مهد من أسد الدولة كلهم كعاوي ليلة سيتي ريال مدريد وحرجينا إن لحظة سيتي ما دام أمريم ليجا نادي كان تغيره تاع أرسنال وحنجعلنا إن سيتي لقبضي ما فهمت تاميون ليجا ريال مدريد وحرجينا يقول لا أنا شمارك بقادر حسن رأينا كارل كلهم كشيء ريال مدريد مع سيتي وحابة دون نادي ريال مدريد وعين كبر دون تاس دعيال أنا مقعي محمد دار عثمان وحن فيلا أنا بدين دونتو ريال مدريد وحن بدين دونتا لبيه هل سادا شيء ده وحن رجعنا إني صبح دونتو ولا حسوق دونو مان سيتي إن شاء الله